السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سود وهذا صحابي سود وهذا إن شاء الله وأنا قلنا نعمة عالة صباح إذا ألسيد ما بسوق لي جرين لكن ما أنت شقة إذا يحب لعبنا الساعة 2 o'clock مرك إن شاء الله سود وهذا إن شاء الله ما أنتو حكا إن بدنا حنكا هلنا قويسك إسقابة إيو دتك فاميلية إيو لكن ما أنتو وإنا جانسي إنه dhalinyarada rabta inay hadda guursato barafaada ay banaanka fiiriya wax yar basementkan jooga waa idinku qabana ma aragtaan barafaada ay wax yar marka dhalinyarada aan wali guursan iyo waxyaabaha looga baahan yahay yani waxa moodaa sometimes in ma aragtay dhalinyarada ay ama dadka guursanaya guurka iyo wax badan ka fahansaneen la isku soo tuuro hadhowtana ay dhibaato badan kala kulmaan marka insha Allah dhalinyarada inta aan wali guursan waxa looga baahan yahay horta qofka marka hore oo waa in ma aragtay qof isku filan qof ma aragtay reer dhaqi kara qof financial stable ah qasab ma qofka inuu rich yahay laakiin qof reerkan iyo baldadkan kabi kara wadamadan hadda anaga aan joogno alaykum salaam rahmatullah samatar soo dhaw alaykum salaam rahmatullah maxamed kifaax soo dhawow cabdullaahi xayle soo dhawow walaal aadan cabdi alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu wax yar waxaa idiin shidayaa sheekh cabdirasaaq sheekhyada aada ha loo tixgeliyo runtii yacni wanaag badan ayay noo wadaan waxa weeye xaaskaaga dan ka soo yeelo dumarka kalmaf dumarka ayada ugu qurxoon tahay dumarku waxay aad ugu dagaal markuu nabigu hadlay sallallahu alayhi wasallam ninka yimid hadduu rabo xaaskiisa qalbigeeda inuu mulkiyo oo qalbigeeda uu yeesho asagana ha ku dadaalo arrimaha soo socda maxaa arrimaha ka mid ah gabadha uu qabo in uu ka dhaadhiciyo inay dumarka ayada ugu qurxoon tahay dumarku waxay aad ugu dagaalamaan quruxda inuu dhaho wax ka qurxoon ma jirto waa kow in uu dhaqaalaha uu saka hakranin gacantiisa iyo jeebkiisa inuu u furo waxay rabto inuu siiyo deynta rabtaan soo qaadato dhar baa la keenaya hadda waa taqaana wadamadan dhar baa la keenaa dhar bay soo xaabsanaysaa wax yar waji gabaxiyay ka arkin intaad oo dhar hay wadataa soo maaha lacagta hore ka bixisi account-kaaga account free uga dhig wax arta kala baxde qofkaas way aaminaysaa waxay leedahay ninkan wax u dhaqaalee haddayna ahayn qof xun waa la wanaajinayaa ninkaas waana mid ay Soomaalidu waxay dhihi jireen gabadha way dhici kartaa baa la yiri inay saddex wiil kaaga tagto ay ku dhashay laakiin saddex dhari oo buuxbuuxda kama tagto macna saddex dhari oo buuxbuuxa maxaa laga wadaa account-ka hadii xoogaa fiican kugu jirto walaga kama tagayso waa sida ayagu dhahaan Soomaalidu say aaminsan yihiin in haday wiil ku dhasho oo qabataan way ka dhaqaaqaysaa macna sababta dumarka ka dumarka way lacag jecel yihiin sheekh cabdirasaaq والله aad buu noo yaqaanaa waa run nin gacan adag diyahayn karaba alaykum salaam rahmatullah dheer xaaji soo dhaw walaalkay nin gacan adag waad maqlaysaan gabdhaha ha toos waay walaal haddaan soo galay insha Allah qofka ma aragtay waa inuu marka hore diyaar yahay guurku wuxuu yahay uu fahansan yahay uu ogaado in mas'uuliyad yani hadaa fadhi ku dirir tagi jirtay markaad gabadh xaasa yeelatid ma fadhiisanaysid fadhi ku dirirkii gabdhaha guursanaya wiil fadhi ku dirirka fadhiya ama nin jaad cunaya ama nin ma aragtay don't expect automatically ninkan hadduu guursaday wuu isbedelayaa adaa ku guursaday fadlan ku joog adaa ku guursaday isagoo fadhi ku dirirka fadhiyaad aad guursatay isagoo jaadka cunaad guursatay isagoo sigaarka cabaad guursatay marka maxaad u complain gareynaysaa hadda waa inaad la joogtaa ها marka insha Allah intaan wiilasha waxaan ugu sheegayaa mas'uuliyad baa ku koraysaa family dhan ayaad ma aragtay hogaaminaysaa reer dhan ayaa mas'uul ka noqotay xaas iyo ciyaal iyo ma aragtay marka waxa loo baahan yahay insha Allah wiil baa yir isoo qabo okay Fawziyo Abuukar sug aan ku soo qabtay walaal الله سوق الولاش
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوزية ما أنت الحمد لله وشاقف. نبض ولا نبض سهد. أبا الحمد لله عدك حاجة كر ويرقاد مو دقيقة سجتر لكن عدك كر ويرقاد ولا. وان كا قاد عدك ولا ضعيف وعدك ولا شيء. هي هاد ما له مقلع. ها ميكروفونك أسود دوو. ها ضعيف. هي هاد. ها هدو وانكم مقلنا ها هي. أباي وحيران كدر سنوا دتكنا هنا هذا الكفوبة يوم جعلي. هاي. قبلها مركي قورسنا يعني هبلايا قورسته هرتا أو قورسني. وارو. نمبر كو. لابو marka mida kalena markii la guurso oo gabar markii guursanaysan yee ka fiirinin dream inin qurxoon inin lacag leh inin wax bartay muhiimadu waxa waaye yaa nin oo in guriga mas'uuliyadiisa ma qaadi kara okay labo ninkana marka isguursatiin hor ordin responsibilities asaga qaato ma fahmino hadda marka mida point gareysa marka dhaxday nimankii markii la guursaday nin jaad cunay nin markii dambe ka hadlaysa which is true waxii ku gashay ku gal laakiin make sure markii hore waxa rabina ku galin wiilashana responsibility meesha yaalo xaasaskooda waa inay ogaadaan gabadhan responsibilitygeedu waa inay qaadaan gurigan ee responsible bay ka yihiin waa nin shaqaysanayo inuu ahaado hadaa shaqaysaneen oo shaqaysta aad tahay ilmahan maxaa ku biilaysaa biri gabadha maxaa ku biilay iyadoo wadan laga shaqaysto la jooga walaal waliba qurba la jooga wadan laga codka walaal kor u yara qaad bay wiilashu ku leeyihiin haye sorry marka waxaan ku wiilasha inay shaqaystaan oo wadanka ka shaqaystaan oo reerkooda ee biilaan ina adigu ku fikirtid waa reer baan guursanay time aan gelinay xaaskayga iyo ilmahaygaan time gelinaya waarun oo odan u dhaqmin inaad single tahay wali single tahay hadaa adi single nima arabtido ina meelaha ororodid arabtido meelaha rabti ina fafariisatido guri friend hang out gareynaysid isku guursanin kii wiil ahaayo kii gabar ahaydna ninkii guursatay adoo time kugu ordaayo oo nin adaa guursatid nin jaad cunaayo nin shiishacaba nin warwareegaya adaa guursatid u adkayso because shala adaa ku gashay waarun marka ani intaasaan ku darsan lahay walaalahay Soomaalida shalay wixii ku gashay ku joog hadii se ahna ma aho yaa aba isku guursanin gurigaaga joog وارنتا ولا الجزاك الله خير رأيك ما شاء الله أدب كوسو دوينينا وبح فوزيوي ما شاء الله ولا الواد ما سنتها إلهك بركة ولا شيء السلام عليكم ها ويل باير سوقبته الله عبد الرشيد رشكا ولا الفر مكسو قبن كرو وحبا كاحدن ويل كاسن سو قبن لها أبح ماذي ubax sheekh okay ku soo qabanay walaal gabadha siday tiraahday wiilasha inta ku gashaan iyagoo wax walba hadhowtana isagoo shaqaysan isagoo jaad cunaya isagoo fadhi ku dir fadhiya isagoo hadhowtana waad complain gareynaysan marka waa qalad weeyaan absolutely waa qalad maxamed xasan cali hay kaalay walaad ku dhagan yahay maanta maxamed xasan cali السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد سود ولا الواندوي وكم حسنت برنامج كذا ديني سو. ها. هرتا إذا أنت قبلها بس ما لها مقرتي. هوارن. قفك دمر ما ركتا يرجع وحاول حاجة ما ركتا معمولهان يعقلان الله مسمين. قرتي. وحاول مسؤولية دسم بريو حيسارنتها نينك ما ركتا نينك يسارنتها. هاي. marka gabdhaha bes horta ha ula boodina dhalinyarada naftirkooda markay mas'uuliyad qaadaan wax kasta oo ku jiray waxa laga rabaa inay ka toobad keenaan waan gartay oo mas'uul buu noqday aabuu noqday in ma aragtay wixiisa hore uu ka soo dhaxbaxal rabo ma garatay
ها لكن ولا المحمد إدقيسو هدي أنيقا هدان كو قالي نين فدي كدر الفدية أو شاد عنايو oo meesha iska fadhiyo oo shaqaysanin sanad kadibna igu dayacay cunugii aan u dhalay ama ma aragtay wixii aan ka waayay marka xaq ma u leeyahay inaan dhaho yacni ninkan waxaasuu samaynaaya ma shaqaysanayo jaadu cuna because anaa ku galay somaha maya asaga naftirkiisa markuu galayo hawshan wuu ogyahay macnaha inaan fadhi ku dirir iyo jaad cunitaan la rabin oo maaragtay hawl adag ay timaado ma garata ha laakiin walaal intayna soo in laga wada hadlo ma aha marka hore waa inaad maya waxaa muhiim ah in laga wada hadlo haddii ay dhacdo oo maaragtay jacayl igu soo bood aan kugu soo boodo meesha u imaado ha waxaa fiican labada dhinacba inay dulqaadka ka imaato gabadha bas maaha gabdhaha bas eed ha saarin jacaylkaas maya hadda gabdha iyo wiilalba waa laga wada hadlaya jacaylkaas igu soo booda waa kaan aan diidanahay oo aan guryihii ku burbureen jacaylkaas igu soo bood waa ku arkay waa ku caashiqay oo aan waxba laga wada hadlaynin hadhowtana dadkii markay guri isugu tagaan dhib ka imaanayo yacni waxyaabihii aan laga wada hadlin that's problemka anaga aan qabna kaas waay ma garata noloshan hadda qurbaha ka jirta midda ugu daran ee ugu adag waxaa waay macnaha waan ku arkay waan ku caashaqay ma garatay taas taasna gabdhaha bas ma aha labadooda mas-uulay ka yihiin rag iyo dumarba dumarkana waxaan dhihi lahaa inay ka fiirsadaana fiican ma garatay ha may wiilasha iyo gabdhahaba waa inay ka fiirsadaan yes waa in laga fiirsado midda kale waa in maaragtay xagga diinta loo noqdo oo maaragtay guri diin la-aan ma hormaro qofka diinba hadduu lahayn oo alla ku xirnayn ha noloshiisa waa iska adkaanaysaa ma garatay waa run marka waxaan leeyahay allaha laga boqo labadiina mas-uuliyad baa idin saaran siiba ninka ragga ah mas-uuliyad baa saaran 100% ah maaragtay wuxuu ku arkay haddii qofka xataa xumaan ku ogaa ama asaga uu xumaa inuu maaragtay 100% isdejiyaa loo baahan haye marka waxaan dhihi lahaa labada dhinac waa la isku sabra gabdhahana midda kale ha sabraano ma garatay maya haddeerta guurka gudaha kama hadlayna intaan la guursan aan ka hadlayna intaan la guursan qofka walaal aniga haddaan rabo nin shaqaysto nin ma aragtay aan balwad lahayn nin aan waa inaan marka hore aniga aan raadiyaa midkii intaas ku safaysnaa nin dabeecad wanaagsan laakiin nin aan shaqaysanayn nin aan waxaasoo dhan lahayn intaan dhex galo hadhowtana wadaado iga fur ninkaan ma shaqaystee waa laba ciyaalna waa maya tan ha laga fiirsado midda aad dhehaysa barnaamijka laga fiirsado way saaxan tahay waa in laga fiirsado kowdar gabdhaha waa inay 100% ka fiirsadaan ha marka anaa ku galay anigii haddana waxaa waa laba ciyaalan jiida already waxaan leeyahay sheekho ninkaan iga fur waa loser ma shaqaystee dhibaatada ugu badan hadday isfuritaan imaato waa gabdhaha u daranta marka waa in ay ka fiirsadaan oo maaragtay arrinta ay si fiican ugu fiirsadaan waxay meesha galayaan ogaadaan because iyaga ilmo qaadayo maaragtay dhib badan marayo ha absolutely inkastood furitaanka uu dhib badan yahay laakiin labada dhinacba laakiin gabdhaha aad dhibaatada u soo food saaraysaa oo ilmihii jiidaya ma garata ha marka waa in laga fiirsado adigana waa ku mahadsantay barnaamijka sharafta leh aad usoo jeedisay dhalinyarada iyo gubaabinta maasha allah walaalkay haye adaa mudan walaal waa ku salaamaya badan haye walaal haye jazakallah maanta subaxii ma shaqaynayo galabtaan shaqo aan aadayaa marka intaas baan waxaan isiri walaalada maanta ubax meeday ubax naa kumee walaal kumee ubax sheekh haye ma ku soo qabtay yaa ubax sheekh waa ikan huuna isoo qabo accepted alxamdulilah ubaxay salaamu calaykum السلام عليكم وبح codkii ubax maxaa kaga dhacay walaalku mee ubaxay codkaa kaa xidhan haddaadna maqlaysid codkaaga lama maqlo ubax kugu soo noqonaya walaal wax uu ku qaban waaye haa guurka waa run isag wiil baa ilahaa isoo qabe cabdiqani aadan maxamuud cabdi adaan kugu xijinaya walaal isug السلام عليكم سهورنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة ولا سو دو ما أنت واد قرنيسي wax laga hadlay Soomaha
ها برنامجك ويلاش دنيرتا aan gabdhaha weli aan guursan camal la'aantaas uma iyo gabdhaha wiilasha iyo gabdhaha aan weli guursan dhalinyarada aan weli guursan maxaa ku habboon in ay sameeyaan inta aynu guursan gabadh intuu iska arko iskalaga boodaya gabadhan intay wiil iska aragta iskaga boodaysa iyagoo isbaranin iyadoo dabeecadooda garanaynin iyadoo hadhowtana sheekho iga fur ninkan wallahi laba talaan isjeedinaya anigu horta marka hore waa inay labada qof ay is arkaan baan anigu qabaa inay is arkaan oo ay isku qancaan oo ay xoogaa is yaro waraystaan aanay isku dheeraan siday diintu ina fartay waa inay u dhaqmaan waa in waxyaalaha diintu xarintay ay joojiyaan yacni inkastoo dhalinyarta badana maanta waxaa ku badan waxaad arkaysaa qaar 3 sano isla socda waxay maanta la isku sheegayaan garamaysid 3 sano qaar isla socdaad arkaysaa marka dhibaatada haysata maanta dhalinyartii waa dooqii oo ka dhintay iyo kalsooni baan jirin kalsooni marka wax yacni gabadhi waxay raadinaysaa wiil fiican oo qaadi kara ka soo bixi kara iyada xafidi kara oo ciyaalkeeda xafidi kara gabadh wiilkiina wuxuu raadinayaa gabadh ku habboon ciyaalku ay dhasho gabadh ku habboon oo waxaa ku leeyahay dikaale araga ma gartay nin kastiba meel kasta si kale wuxuu raadinayaan marka waa in ay siday diintu ina fartay waa inay sameeyaan horta kow haddii mar diinta laga tago oo lagu bilaabo fasaq kaasi guur ma aho 2 daqiiqo kadib waa isfurayaan dadkaasi waa isnacayaan waa iska hor imanayaan marka waxaa dhalinyaradaas oo yacni waxaas ku jira subxaan allah ilaahay ka madoobeeyey horta fusuq iyo guur lagu bilaabo balaayo guur ma noqonayo kaas absolutely it's gonna fail marka dhibaatada ugu horeysa waxa weeye uu qoysku u burbura marka hore waxa lagu bilaabay cadho ilaahay sidee wax cadho ilaahay lagu bilaabaya u hagaagaya waa sax marka waxaan u sheegayaa in kitaabka lagu noqdo xadiista lagu noqdo siday diintu ina fartay in gabadha loola dhaqmo hadda dadkan reer galbeedka romantiga sheegaan ka hor salawaatu rabbi wa salaamu calayhi baa soo sameeyey waxan wax hadda iyagu inoo sheegaan maaha diinteenna bay ku jirtaaba aya cabdiqani romantigu maxaad waa u taqaanaa adigu dee qof bas romantiga si uu u yaqaanaaye bal adiga romantigu waa jacaylkana nabigeena soo sameeyey calayhi salaatu wasalaam waa inaan waddadiisii qaadnaa sallallahu alayhi wasallam aanan ku dayin dadkan ma aragtay jacaylku ma aha in darbiyada la isla istaago ma aha soo maaha oo ma aragtay jacaylku waad saxsan tahay maaha in darbiyada la istaago maaha in labada qof ay si khaldan ay u fasilaan wax oo yacni reer galbeedka iyagoo ku dayanay maanta waxaan samaynaya romanti ay intay leef dhan bulsho dhan soo dhex istaageen afka iska shaqeeya waxaas waxa weeye waa wax khaldan weeye waxaas romantic maaha dhib islaamka romantic loogu yimi iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam taasaa loogu yimid marka waa in sunnadii nebiga loo noqdaa qofku mar haddii uu diinta fahmo ay gabadhuna diinta fahansan tahay labadaas anigu waxaan waan aaminsanahay in aanay weligood khalkhal aanay dareemin waasan anigu aaminsanahay marka waxaa kugula talinaysaa dhalinyarada dadkan hadda guursanin diinta ha loo noqdo first of all diinta ha loo laabto sax waa diinta ha loo noqdo diintay wax kasta ku jirta haddii mar diinta laga tago wax laysku sheegayaa ma jiraan absolutely walaal waad mahadsan tahay dad badan baa leenka ku jira cabdiqani gabagabadaadii gunaanadkaaga waxaan u sheegayaa inay dhalinyaradu diinta barato intaas weeye aniga waa mahadsan tahay walaal insha allah allah ku barakeeyo walaal assalaamu calaykum hayo walaal waa mahadsan tahay assalaamu gabdhihii meye gabdhihii waxay lahayd suhuur meeday suhuuray waad carartay halkaasaad aaday ilhaam baan ku xijinayaa suhuur ilhaam cabdullaahi gabadheeda yar baa ilhaam la dhahaa okay suhuur okay ilhaam cabdullaahi accept dhe walaal gabadheeda yaraad isku magac yihiin asalaamu calaykum ilhaam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magacaaga waxaa ka ursanayaa yaraanteeda ilhaam la dhahaa ما شاء الله. soo dhawo walaashay haye maxaa nagu darsanaysaa والله هرت أنا في سومالي جيس في عنو ما في عنو وسومالي but I'm gonna try I'm gonna speak in both languages. ingiriiskaaga ku dhex dar insha allah dhib ma laha walaal. Yeah, so I think aniga maxaa u maleynayaa the reason why dumarkeena iyo raggeena the reason why they are not getting married is because first of all ninkan has self-interest anigana self-interest haysta so that's why dadka markay isguursadaan kabacdi they wonder what is wrong you know
qofku waa isbedelaa ani waa isbedelaa so there's lack of miscommunication because aniga maxaa u guursaday inuu ninkan for example financially iga difaaco ninkanna muxuu i guursaday for example inaa gurigu joogo oo iskaabulonimada ka bixiyo oo cuntada u kariyo because there's no responsibility. You get my point? People do not understand the sole responsibility of getting married, the sole responsibility of having a wife, the sole responsibility of having a husband. So ninkan muxuu u guursaday naagtan inuu iskaabulonimada iskaga difaaco aniga ninkan maxaa u guursaday for example maybe haddaa family lack of financial support haddaa ka imaanina inuu ninkan financially igaga difaaco oo ani xataa reerkayga u difaaco. You get my point? So dadka markay isguursadaan after 1 year later but like there's so much disagreement, there's so much miscommunication. ninkan naagtan maxay leedahay ninkan maxaa i guuriye ninkan muxuu leeyahay naagtan maxaa i guurisay because ninkan wuxuu naagta kama helin naagtan waxay ninka ka rabtay kama helin. You get my point? Let me ask you, isn't that appropriate time to ask that question? Wasn't it that before the marriage everyone that should put in the plate what is expected from each other, what's expected from the husband, what's expected from the wife? Isn't that communication? I need this from believe me, but do you think every person would be very honest in terms of their own waxay adiga ka rabaan? They would never tell you. dadka markay ishukaansanayaan they would never be very honest with each other. That's why I'm telling qofka marka ishukaansanaysa from the first place aa laga rabay horta and the relationship should have honesty from the beginning of everything. You get my point? So I believe if there's no honesty if there is no honesty or in the relationship foundation, then there's lack of misagreements. That's exactly it. Starts with lies, it's gonna end with lies. That's why we have to change it. Everyone. That's what I'm saying. So, this is what I can afford. This is what I'm gonna do for you. But if the guy give the lady like a dream, like I'm gonna do this for you, I'm gonna do this for you, and then later on, like none of these things happening. Not even that. I'm not talking about that. I'm talking about responsibility. For example, the responsibility of marriage on both sides. People have to know the expectations of marriage. People have to know what responsibility I have on this family that they need. If I can take care of that responsibility, and the husband should do the same thing. He should, as much as we are both working, as much as maybe he earns better than me or I earn better than him, he should know as a father, he should know as a man, he should know as the way the religion has set for him, as him being the head of the household, that he should take responsibility in every situation. You get my point? He should know his own place in this family. But that is something people do not understand. Majority of the Somali community understand that the reason why they're getting married is because first, if the guy is living in a very there's lack of social needs in where he lives. The reason why he's getting married is because maybe qawowga iska bixiyo oo iskaablanada iska bixiyo. So apparently when he gets married, the woman has no voice into the marriage. Same thing to the woman. When she is getting married, she wants financial capacities and all that to be fulfilled from this guy. But she doesn't know that being to this marriage, she has responsibilities in coming to this marriage. She's a partner, she's a wife, she's going to be a mother, she's going to be the head of a household. You get my point? A backbone of the household. So people do not understand that. People should get to understand, am I responsible enough to get into a marriage before getting married? So that is my opinion as a person. What's your conclusion at the end? What's your advice to the last, inshallah? What are you going to tell the... My conclusion is you have to be responsible yourself. Can you first take care of yourself? Can you take care of yourself before letting in someone else into your life? Are you able, first of all, to take care of yourself, to be responsible enough to take care of yourself, then invite someone into your life? That's my final conclusion. Inshallah. Thank you. Jazakallah khair Ilhan. Wa ma santay walal. Okay. Salam alaykum. Okay. This is opinion. Qof kasta fikradiisa xor buu u yahay walaalayaal. Qof walba ma aha inaad ku qasabtid qofka fikradaada. We all have our own opinion. Dad waaweyn baanu nahay ma garatay.
mana aha in la isku caayo marka qof walba fikrad gooni uu leeyahay marka insha allah si waxaan soo qabanayaa who's next okay yaa soo qabtaa okay Mo Ali haye sug you are entitled to your own opinion fikradaada adaa iskale xor baad u tahay halkaa maxaa ku qoran super mom gabadheeda yaraa tiri cab soo assalaamu calaykum الله السلام وبركاته عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا أمها صنتها ولا شيء ذا برنامج كأسكسو دبردي والله هو برنامج برشدة عادي يقول بهانت هاي وحان قدر صلاة هاي أنيجا برنامج كان رون أهانتي أرتا قبلها واحد كلفايو ويليشنا واحد كلفايو إني مركز أركان واكو واكو عاشقة إسكو جرسدان waxaa jiro yani qof walbo waxa waaye wuxuu rabaa bis waqti yar inuu ku moodo adduunyadana sideedaba walaalay ma la helo qof straight away oo yani guurka daacad oo ka yahay way yar tahay haddii la helana dadka dhanna masaalixa isku wada keentay qof walba qofka kala danuu ka leeyahay amba ha ahaato inuu qofka waqti ku moodo hadda wiilal badan oo waxaan arkay dhahayo maxaan u guurto weynay maxaan qof daacad u heli weynay gabdhihiina waxay leeyihiin sidoo kale marka waxaa jiro arrin oo misunderstand oo yani dhalinyaradii ama gabdhaha ha ahaato ama wiilashii ahaadaan yani mid walba dhinac buu ka calacalaya oo wuxuu leeyahay qof honesty oo yani guur daacad uu ka yahay ma hayo wallahi abayoy dhalinyaro badan oo hadda yani isku meel aan ku noolnahay maxamed waxaa leedahay guurka dhanba waaba temberyaa laga dhigay ma loo guursanayo in qofkaan ma aragtay ilaahay intii noloshaada guur yani niyad wanaagsan iyo ma ahee waa just wax yaroo temporarya laga dhigay aan kusii moodmoodo aan halkan kusii maro daaseed horta aan kaa dhex gale dadka ilaahay isku wada mid kama dhigin dad badan oo temporary guurka uu ka yahana way jiraan dad ay daacad guurka uu ka yahana way jiraan marka labada qof oo guurka daacadda ka ah semberi isma haleelaan qof nasiibkiisa ilaahay qofka kale ku aadiimo ogiye gabdho badan oo temporary laga soo dhigta waan arkay oo yani qaar family aan nahnay qaar asxaab aan nahnay oo waa laysoo furo dhahaayo oo markii aan weydiiyey furiinka muxuu ku imaaday yani reason oo yani aan wax oo aan reason ahayn kaaga jawaabayo ma fahantay marka ninka naagta inuu fura door rabo cid ka celinaysa mala ma ogtahay amba wuu ka masiirinayaa ama yani wuxuu leeyahay ma shaqaynayo maxamed wuu ka si fiican mii maqashaa hadda waa ku maqalnaahaa marka maxaa kula talinaysaa dadka aan weli guursan inay maxay sameeyaan walaal inay ilaahay tabakal saartaan waxaa jiro ilaahay yani quraankiisa wax badan oo noogu sheegay yani haddii aad dhibaato lasoo deristo ama aad wax inaad la tashata aad ducooyinaa jiraan inay ay adkaar akhristaan inay ay tukadaan salaatu istiqaara ilaahay waxa waaye wuxuu waafajinayaa guur sax ah iyo nolol fiican qof uu ka helayo qofkaas waafajina hadduu qofkaas ilaahay aaminsan yahay waa istiqaaradna uu tukado intuuna guursan ka hor inay shar hadday u tahayna ilaahay ka qabto hadduu shar wiilkan u yahayna ilaahay ka qabto hadduu wanaag u yahayna ilaahay ku waa intayna guursan ka hor ha intuusan guursan qofka waa inuu ilaahay tabakal saartaa istiqaaro tukadaa ilaahayna aaminaa qofkaanna yani marka hore oo si fiican ugu fiirsado inkastoo dadka dhan ay yani qof dhammaystiran aan laga wada helayn qof walba qofka oo raadinaya ma helayo horta taasaa xaqiiqa qofka walba guur tabakal saarto qofka conditionskana ha iska adkeeyo oo qofkan markii ay isguursanayaan sharuud ha wada galaanoo wax walba qoraal wax walba yani wax oo qoran oo rasmi oo hadhow haddii labada qof way isqabanayaan dabcan markay isqabtaanna haddii wixii ay ku heshiiyeen marka hore haddii ay qortaan ay dhahaan warniyow
waxaan kaama mudniye maxaad igu samaynaysaa shuruud hadda guursado marka arrimo badan oo waxaa jiro oo in laga fiirsado loo baahan yahay ay ka mid tahay in wax la kala qorto ما شاء الله محمد ولا الآن بضمان اوكي داق اوكي ما يويل بالها كبرد السهور سهور كوين accepted walaal walaalayaal waa idin soo qabanaya wallaahi mar qof baan soo qabanaya insha allah السلام عليكم سهور هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة walaasha fikirkaaga dadka intayna guursan maxaa ku habboon inay sameeyaan هاولا ما شاء الله برنامج wanaagsan baad jeedinaysaa waxa weeyaan qofku intaanu guursan waxa weeyaan inuu iska eego waxyaabo badan haye waxa weeyaan yani waa runtaa weeyaan dad badan oo waxa jira marka intay marka hore ku qaataan nimanka waxyaabahan aad sheegaysay ee aad tiri ninkiiyo iska fadhiyo bilaa camal oo maqaaxiyaa fadhiyo shaqaysan oo mas-uul ka rahayn ay qaadanayaan somadoo dhan hadhowna waa qudinaya marka dambana iyagii baa qaylinaya oo odhanaya sheekhow naga fur ninkan inama anfacayo marka aniga laftigayga on kula aaminsanaya marka hore inay ka fiirsadaan oo ilmaha iyo dadka ku harayaan dadka culayska badan uu koraayo waa inay aad wiil iyo gabadhba waa inuu ka fiirsado laakiin gabdhaha waa inay aad uga fiirsadaan maya kolley waxa weeyaan wiil iyo gabadhba waa loo sameeyey in laga fiirsado oo waayo guurku waa mas-uuliyad weyn ma og tahay marka waxa weeyaan hablahuna waa laazim weeyaan inay si fiican aad iyo aad ay uga fiirsadaan guurkooda oyna hadhowtoo la kacalaacalin waayo waxa weeyaan guurkan wax ciyaara maaha rag anfacaya eegtaan oo aanay ku eeganin yani nin lacag haysta nin wanaagsan oo anfacaya waxaa jira rag badan oo yani waxyaabo beena kusoo xerogelinaya marka hore ma og tahay adduunaan ku siinayaa dalaq markay meeshii ay gurigii gashana yani sanad ama 6 bilood iska dhaadhiciyo runtii baa soo baxaysa laakiin mahmaadan baad moodaa inay badanaa ku salaysan yihiin run been kusoo xerogeli runna ku dhaq wallahi sister waa runtaa weeyaan mahmaadaas inta badanaa ay ragga soomaaliyeed yani dumarkan inta sanadahan dambe waxaad arkaysaa ninkii gabadha uu iska dhisaya inta hore uu shaqaynaya markay gurigii gasho ay gabadhii yani la doonayay inuu ninkii waxyaabihii hore iska daayo uu mas-uuliyadba uu qaado oo uu iska dhigay yani waayo aabuu noqonaya ma ogtahay absolutely oo la doonaya nolol cusub inuu bilaabo ayuu halkii dib uga gelaya ayuu doonaya halkii ku noqonaya marka waxaan kula talinayaa inaanu aad aan leeyahay dhalinyarada somaliland iyo dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay guurka ay aad uga taxadiraan hablo iyo ragba inamaduna ay eegtaan hablo wanaagsan oo munaasibaya hablahana ay waxa weeyaan iyaguna waa daruuri weeyaan inay eegtaan rag wanaagsan oona ku eegan lacag laakiin nin wanaagsan oo u qalmayo oo daacad oo diinta wax ka yaqaana ma yahay oo shantiisa waqti tukada ما شاء الله قف والبا sidoo hadda maanta ka dhawaajiyay in diinta loo laabto diinta qofka haduu laabto waxba kama halaabayaan waxa jira niman badan oo yani oo tukanayn marka guri aan lagu tukanayn oo diinba lagu xusayn guri ma noqonayo sister ma ogtahay marka waxa weeyaan hablo waxaan oran lahaa hablo lacagtan iska daayay niman wanaagsan oo idin qalmayo diinta wax ka fahansan diinta maaha qasbi inuu wada istu sheeqaado ninku ma garatay nin akhlaaq leh oo wanaagsan oo adiga ku qadarinaya ehelkaaga qadarinaya meeshaad kasoo jeedo qadarinaya intaasaa muhiima gacan furanna gacan furan yani hadduu akhlaaq leeyahay uu gacan furnaanaya ma ogtahay oo dadkii uu qadarinayo ehelkaagii qadarinayo oo mujtamaca looga arkayo nin wanaagsan oo iimaanlo oo wax ka yaqaana diinta sister aad baad u mahadsan tahay soo qabo waxaan u malaynaya dad badan baa ku jira khadka oo kulana soo qabo ما شاء الله سهور ولا الأد بدو ما تصنتها خير بدنا الله كسي ولا شيء آمين والله سيدا كله
topic-yadan waxaan u wadaynaa yani in yani laga fiirsado in furitaankiyo batay guurkii bilaabicnahoo bartay temporary marriage oo batay yani temporary marriage haddii bal temporary marriage xaggee islaamka kaga qoran tahay bal ii sheega waaye qudbi siro xaggee kaga qoran tahay islaamka ilmaa lagu dhalayaa yani haddaad diyaar u ahayn mas-uul aad ilmahan maxaad u keenaysaa ilmahan waxaa way xaqu kugu leeyahay ciyaalkan meel walba la daadinayo oo yani dad yani wax kale ka fekerayaan bal insha allah dadkan soo qabtay sidii walaalayaal wiilba maanta dhan ilahay soo qabo may cabdiraxmaan muu ahaa haa cabdiraxmaan wiil yar buu ahaa dhalinyaro cabdiraxmaan may cabdiraxmaano kumee walaal ها ها روسك قبلها يهوينك أيا علايس كدغي عبد الرحمن هو يقعد ودا ملنا ها ما واكن عبد الرحمن بركي سو دو ولا ليبان you are next إن شاء الله نشاد you are next عليكم السلام بارلين هيا عبد الرحمن accept دي ولا أنا حتى وقتي أيقو تاجن مرة وايد كنت جيها ساعد بان إلى لنا يا ماشن عبد الرحمن accept دي ولا accept بس قبن وايي ونكحهم هاي سق وحسوا قبن يا ليبان عثمان حاج السلام عليكم ليبان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته horta adoo hurdana lama hadli kartid may hadda banaan ka soo galay guriga had yartaan imaan mawduucan waa u jeedaa kor kala fadhiiso okay waa ka saamis kamerada iska leexiyaa hadda maya kor usaas u fadhiiso caadi weyn haye maxay kula tahay okay marka meesha waxa ka jira waxa waaye horta Soomaalida waxa u malaysaa ninkii naagta la isugu talagalay sida barnaamij inay isku soo aadeen naagii Soomaaliyeed qaldantay mid ka qaldantay ayaa waxay tahay gabadhii baxda ama ciyaalkeedu u baxdo u shaqo tagto bas waxay aamintay siiba gabdhaha jooga ama Mareykanka ama Yurub inay ayada reerku inuusan ninka cod ku lahayn inay maanta dhan waxay rabta sameeyso inuu guriga xushmad ka jirin in ninka ku liso nimanka Soomaaliyeedna majority waxay noqdeen niman guriga niman mas'uuliyad loogu talagalay aan ka soo kafee aado nin maanta dhan ku maqan nina ilmihiisa jeclaan nin naagta kaliya fiiriyo muhiimadda kow naagtana waa inay ninkaas shalay intan aqoonin ee jidka ka soo batay oo waa hooyadeedna dhalin aabaheedna dhalin mas'uuliyadda koowaad saaran ee tahay in ciyaalkeeda fiirso ciyaalkeeda ee korso shaqa adeysday wax walba ay samaysanayso kuwaas ay u raashato ninkaas ma yaqaanaan hadduu furan ay ka danaysato maadaama uu furay awalba aabaheedna maahan hooyadeedna ma ahan wuu nacay hadduu furay waa inay hore usii socotaa ayada ciyaalkeeda ay fiirsato ma ahan waa i furaysaan waaye muxuu ii furay muxuu ii soo biila muxuu saa ii yeeli waa muhiimad taas maahan waa inay kuwa ayada ee dhashay ay fiirstaan Soomaaliyeedna waxaa kula talin lahaa inaysan mas'uuliyadda kuwaad naagta ka dhigeen ciyaalka ay dhaleen waa inay haystaan waa inuu wuxuu u baahan yahay cunugiisu uu siiyaa waa inuu cunugiisu wuxuu u baahan yahay uu qabtaa waa inuu aabanimada uu uga baahan yahay intuu nool yahay uu ka helo nimanka Soomaaliyeedna ha iska dhaafaan naga jaceelka iyo guri fadhi shaqaystaan maasha Allah taas waa tali naagaha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hadii lagu furo oo laga tago walaalay waa laga tagay Soomaaliyeed diiban gabdhaha Soomaaliyeed ha nolol kala sameeysan ninkaas iska dhaaf ninkaas faraha Ilaahay ka qaad aabahana ama hooyadana ma uu ku furo macnaheedu waxay tahay dan badan oo kale inta ka mala ina qiiqta aysta xukunku soo ziyaadinayso ciyaalkaaga iyo noloshaada kala raadso gabadha haday dhehaysan facility family-gayga xataa uu siiyo family-gaaga ma qaban ninka aduu ku qabaa adigu ay wax ku siiyaa waa inuu ciyaalkaagan wax reerkaaga wuxuu kugu tari karo uu kaaga roon yahay uu ku siiyaa u baahan yihiin laakiin badinta ama mas'uul ma ahan inuu ninka reerkaagana biilo adigu ku biilo marka ilaa isa fiirsado waa maasantaa marka insha Allah dadkan kala u baranaya ayagana ay walaalkii okay اوكي نشاط سكن سوقبتي نشاط اي نشاط ولا شيء الله ولا
ما كسو قبان كره maxaa dhacay waxba ka xiran uu diidan yahay inuu kusoo qabto bal taleefankaaga dib ugu noqo walaal update ku samee si waxaan akhrinayaa cabdi xakiin bulxan wuxuu yiri been maaha ninka hadduu qof qura ku kooban yahay wax walba wanaagsan way sameyn lahaayeen laakiin waxaa dhib ah kun la hadalka kowna ka raac taa waa intaan la isguursan ka hor soo maha isoo qabo haye maya cabdiraxmaan maanta oo dhan baan kuu yeerayay maxaa maanta oo dhan baan ku lahaa kumee bishaaro muumin bishaaro xataa ma soo qaban karo walaal taleefankaaga fur bishaaroy waxbaa ka okay cabdiraxmaan kugu soo noqday haddana cabdiraxmaan baraki walaal qabo super moms coffee kafeegan super Hello. السلام عليكم وعليكم السلام. والله aniga waa fikrad ahaanteedu waxaan qabaa horta barnaamijka waa fiican yahay qadkaa ka xun cabdiraxmaan am sorry walaal qadkaa ka xun yaasiin salbaan cabdullah kusoo qabtay walaal markaa soo fadhiisanaysid hanoo jiifsanin waa adoo fadhiyo soo guest decline yaasiin waa diiday okay maxamuud cadde soo qabso walaal diinta dib ha loogu noqdo haye waan ku soo qabtay cabdiqaadir xaaji haye bal you are next accept the walaal accept the waqti baa igu socod waan ka tegayaa accept the walaalkay cabdiqaadir xaaji accept the la soo qabadee dee qofka markaa soo qabtana ma qabanayo waaye ibras cabdullaahi kayd waan ku soo qabtay haye soo gal afar baa ka mid ah liibaanta wax yar muxaadaradan ay noo shidaaya insha waxaa ka mid ahayd almar'atu saalixa naag wanaagsan ninkii guursado afar baa ka mid ah liibaanta waxaa ka mid ahayd almar'atu saalixa naag wanaagsan ninkii guursado xadiid kale nabigu waxaa jira sala allahu alay wasalam uu leeyahay addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa adduunyadu waa raaxo raaxada adduunkana waxaa ugu wanaagsan raaxada adduunka ninkii helay waa ninkii naag wanaagsan guursaday laa shaka arrintaas shaki male xadiid kale waxaa jira nabigu leh sala allahu alay wasalam isagoo noo sheegaya xataa maalka iyo waxyaabaha la ururinayo iyo adduunka iyo waxaas oo dhan meesha miftaaxa iyo furaha u ah wuxuu leeyahay nabigu alaa ukhbiruka bikhayri maa yaknazu almar'u ma kuu sheegaa waxa ugu wanaagsan oo qofku uu meel dhigto fiiri waa ninkii xataa adduunyo raadinayay markaasuu nabigu wuxuu leeyahay sala allahu alay wasalam almar'atu saalixa waa naag wanaagsan waa qof dumar oo wanaagsan nebigu marka wuu tilmaamay oo tilmaamuu lagu xaadarooyinka maasha allah waa inaan dhegeysanaa waa inaan diinta u noqonnaa we have to go back to the basics wallahi wax kasta oo noloshaada go back diinta ku laabo dad islaamaan aamino maadi walaal aamino
cabdi say ii soo qaban lahayd way igu daashay farxiyo cali you are next walaal soo qabso walaal waa ka xumahay waxa waaye qofkii gacanteeda ku dhacdo un baan soo qabanayaa insha allah farxiyo cali walaal accept leh sal allahu calayhi wasalam mar dhow waa idinka tegayaa accept leh walaal farxiyo cali wuu ku soo qaban waayey farxiyo cali walaal jimco wanaagsan anagu weli khamiis bay noo tahay weli jimco ma la gaaray bishaaro muumin walaal kumaba soo qaban karaba taleefonka intaad demisid farxiyo cali haddana waan kugu soo celiyey farxiyo accepted walaal عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها قميص أنا قنوتها قميص يوم الخميس فرحية ولا لو سوق بن واهي مرك إن شاء الله هل اسكو دلقات هرت أنت أنا اللي جرسن كهر قف كستا يعني هرت دينتها لسكو حرا بليز دينتها لسكو حرا فضلا دينتها الله عررو استقارها اللي تكذو إن قف كما أركتي it's not important مهم معها يعني قف perfect ما تشرو وناكت وإنه سيدا نقطه ننكو وإنه سيدا يهي وإنه بلاسان يهي وإنه كن يهي من دين له وأخلاق له سيدا دين تنوت المانتي قبل ما شاء الله إن شاء الله والخير يا لكن سهداد وحيابهم أن معنا لهين أتمرك وركم مشقوشين هذا وتن وحيماني سا يا نينكن إيجا فراي يا ناكتن إيجا كحياي مرك ماشينا محكي إيمانا إلما كدرنا temporary marriage وحلا ده مجران قد بسر وحلا ده مجرو marriage كوا loud and clear كبرها وحسمين إنسانين وحي قرسين إنسان ناقب هذا وتوحي الكذب حدا سهار ناقو قوا كوكو بلنكرين واكو قشيء ولا لا كو قلي مركا وحلو بهنيا إنها مال ترتيب وفديدت نينا كل مدي هرب إسقو مال وجيلا oo xataa u shaqeyneen oo waxba u qabaneen gabdhaha ma inay diidan in ay gursataan ma diidana wallahi runtii ma diidana laakiin tii hore ku dayacan anigii ku dayacan ciyaalkii ku dayacan kulay afraal ibnay mid kale ku booda maxaa marka how do I feel marka adigii guriga dhistay laakiin guri kale aad dumisay kana waxa laga yaabaa marka waxaas ma soconayso ha Ahmed Ali okay ku soo qabta Ahmed Suka ها قبل دين له أو صلاة تكنيسة أو أستران أو إلهي ذا كعب سنيسة رات سدا مركور الدين تلو عرر ولا ليا السلام عليكم أحمد وعليكم السلام ورحمة الله أيوة لكن سؤال ده ضدك أنت نقول سنكهر اللي يرى ذا محاكو هبون إنه إيجان والله waxaa ku haboon reality marka laga hadlo waxa ugu weyn ee qofka bani aadamka laga doonayo waxa weeyaan in horta marka ugu horeyso Allah ka cabsado dhalinyarada anaga dhalinyarada hadaan nahay inta badan waxaan ku fikirnaa reality marka laga hadlo isheeg waxa anaga aan jecelnahay hadii ahaan lahayn hamigeyna hadii ay ku sanleyslaan lahayn yani isheeg yani hamigeena sida uu doonayo laakiin reality waxa ay tahay qofka bani aadamku waxa jiro waxyaabo laga maarmaan ah inuu horumariyo noloshiisa waxa kamid ah hadii waajibaadka uu ka rabo hadaad horumarido runta reality marka laga hadlo wax kale easy noqonaya aniga reality markaan ka hadlo ka Ahmed ahaan aniga diinteena ina farisa 4 iyo 3 inaan guursado laakiin ani ahaan shakhsiyadan waxaan jeclahay inaan guursado hal qof kaliya si aan iyada farxad u siiyo hadhow qofkan hadan ka dhaxgalo aniga walaal ninkiyo naag qaba oo hadda la say aniga aba ninkii nin qabaaba marka huwa aniga yaa rafaadsan ma shaqeeyo aniga yaa ku kor dulman ku kor dayacan marka ma dhihi kara afraal ii baneeyay marka maqlo gabar kale guursaday anaa badayacan be
diintan islaamka inaan kuu banaynin soo maha diintan islaamka waxa weeyaan qofka aad yacni nolosha la qaybsanayso inaad wanaajiso sax haddii aadan wanaajinin qofkaa kale see ku wanaajinaysa aad guursanayso taas su-aal isweydiin mudan waaye soo ma absolutely marka waxaa wanaagsan yacni inaadan baabi'in farxadda guriga ilan qof farxaddiis haddaad baabi'ido qof kale aad dhisto adee waxay kugu noqonaysaa yacni sheegeen maxaan ku yidhahdaa nasiib guri darro guri ma guri fahamtay dhibkeeday leedahay ha realityga markaan ka hadlo aniga in badan waa lii weydiiyey aniga wallaahi aniga horta weli maanan guursanin ma fahante weli maanan guursanin hadda kadib aanan guursa doonayaa realityga markaan ka hadlo aniga hal qofaaba iga badan maanta halkan qof haddaan sii karo waqti haddaan sii karo nolol ay ku farxdo iyada inaan yacni waqtiga in badan la qaybsato si nolosheeda mar walba ay ugu ilaato farxad aysan usoo gelin mugdi yacni waanu ognahay realityga marka laga hadlo soomaali haddaan nahay haddaan laba qof isla guursano dhibaatada ka dhexdhacaya waad dareemi kartaan anaga waxyaaba naga qarsoon ma badanba jiraan kama bixi kartaba dhaqaale ahaan weliba qurbaha hadda lase maraykankan oo kale aniga joogaa wallahi it's very sax tahay yacni ninka laba reer yacni reerkaana yacni basic lifeka waxaa laga yaabaa in 4,000 5,000 ay qofkaa ku baxda familigan kana 5,000 mise inta sax xataa waqtigii inaan sax marka in la iska waalo ma aha qaar sax intay ka cararaan gabar masaakiina africa ay aadayaan gabadhii waxaa laga yaabaa in sax u arkin dulmi waaye sax ha gabar sax kusoo guursatay waxa waa biil yara isaga tuurtuuraysaa laakiin gabar yar dhalinyaro ah waaye waqti uma haysid halkaana naagti kale ku qabtaa yani dhibaato badan waa sax gabadhii waa dulminaysa walla horta anaga dhallinyarada horta waxaa yacni waajibka inay fahmaan gabadhan shalay waad u baahnad markaa guursanayso waxaad lahayd aniga qof kale kaama raacanayo qof kale kuma guursanayo waxyaabaha waajibka waxaa ka mid ah qofka dhallinyarada inuu yacni ogaado waxaa ka mid ah gabadhan yacni xaamilad kuu noqotay uuray kuu yeelatay yacni way kuu dhashay xanuunkaas intaa soo maraysa yacni fiiri intay la eg tahay maanta walaa realityga marka laga hadlo qof anaga rag haddaan nahay qof sidaa wax u samayn karaa ama yacni u dulqaadan kara ma jiro maanta haddii wixii dhan ay kuu samaysay ay kuu dhashay intaasoo san ay kugu soo dulqaadatay haddii maanta qof kale ka raacda ka hor yacni kuma baahnay reality marka laga hadlo sax way jirtaa diinteena wayna fartay 4 guursada si islaamka ay u badto laakiin maxaa ku jira meesha laakiin ku jirta haddaad awoodo islaantaadana yacni ay ku qanacsan tahay oo yacni iyada naftirkeeda marmar qaar qoysyada qaar waxaa arkaysaa ninka naagta uu qabo inay u guurinayso naag kale markaasoo kale waa caadi haddii aad tiraahdo islaamkaa badinaa oo kale laakiin muhiimadda waxaa waaye qoyskaaga kuu dhisan ha ku burburinin fursadaada ama gacantaada si aad farxad u siiso gabadha aad qabto ilmahaaga ha u burburin qof kale ama farxadaada ilan taada waxaa ka weyn teeda ka weyn realityga marka laga hadlo maasha allah marka ani saasaan dhihi lahaa afar haddaad awoodo guurso laakiin haddii aysan dhibaynin ama waxyeelo aysan geenaynin aysan u geysanaynin gabadha aad guursatay ama gabadha aad qabto waxaa wanaagsan in badan wanaagsan hal qof inaad guursato halkaas qof ilaahay ka waxaa laga yaabaa fiiri tusaale ahaan anaga afar u cararnaa maanta afar waxaa ka raadinaysa hal qof inuu ilaahay kaasi waa laga yaabaa farxad ilmo wax walba saxa reer يعني لaba ciyaal ama hal gabadhaad si fiican u wanaajisay oo si fiican kaaga wanaagsan 10 aad meelaha ku daadisay ma garat ha simple okay ma sha Allah walaal aad baad u mahadsan tahay dad badan baa sugaya Axmedow jazakallah khayr haye walaal waa mahadsantahay walaal insha Allah waxaan u sameynaynaa wacyigelintan yani in mar hore la sameeyay ahayd 20 years ago in la sameeyay ahayd because waxa way guurka waagi Soomaaliya geedaa laga hoos fariisan jiray maal yiri hooyooyinkeen managa naqaan maanta dhan baad ma aragtay reerihii iyo waa la isdaba socon jiray ma aragtay ma sha Allah gabar marka la soo doonayo waxay ahayd yani laakiin hadda waxa waaye fudayd qarraf furitaankan wuu yaraa reerihii marka hadda I don't know wallahi wax qaldan ma garanin marka waa inaan is wacyigelino waa yes waa inaan halkaan soo fadhiisano oo aan wanaag ka sheekayno oo is wacyigelino dhalinyarada wacyigelino furitaankii oo batay ilmihii meel badaadsano batay gaaladii ciyaalkii qaadanaysa ilmihii dayacan jeelashii ciyaal ka buuxaan yes waa inaan hadalnaa waa inaan meesha soo fadhiisanaa waa in aan dadka aan wacyigelinaa wadaadada habeenii maal waa kasa way nagu daaleen si u hadlaayeen waa daaleen marka sug waxaan soo qabanayaa marka
ka fiirso intaadan falin ka fiirso guurka is a big responsibility weeyaan ha isku soo gelin temporary wax la dhaha ma jiro temporary maan xaga ku qoran tahay waa waqtigii jaahiliyada ahayd waxaaseyti mar horaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka salay marka waanu soo fadhiisanaynaa camal la-aan wax la dhaha mujsugsugha cabduladiif maxamed qofkeena quseyn ha iskaga dhaco cabduladiif ninkii afar awoodow guurso haddaad awoodid oo tekergarayn kartid oo wadi kartid oo biili kartid oo aadan ceydha u tugsanaynin walaal guurso laakiin hadigiyooba ceyr ilmahaagi qaataan oo kuwii horeba ceydh tuugsadaa naagba yacni subxaan allah haa wiilkii aawa soo qabtay iskay wuu mar dhow idinka tegayaa saacad meeshana eg eegayaa shaqaan u socdaa insha allah soon yaan soo qabtaa ani isoo qabo okay abraas cabdullaahi kayd maba kuu soo qabsamaayo walaal adi waxbaa taleefonkaaga ka qaldan haysan magacyo fani fani ah waayba meeshan هاي accepted it. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه معاشا. نمد ولا الفكرة إن شاء الله. أذو ما هتسن حاد نقصو كبرين يسار. dadka inta guurkan ما بلا سعتي الموضوع hadda soo galay dib waa jeedaa inaad soo galay sug waa kugu soo qalcelinayna because isoo qabo markaad tiraad inaad la socotaa mooday qof kale soo qabana wax yar la qabso walaal wax yar la qabso qofka markuu dhahay isoo qabo waa inuu mawduuca la socdaa adoo fadhiyo adoo hurdana soo wicin fadlan cabdisalaan xasan bare aan ku soo qabtay inaa mawduuca la socotid waaye cabdisalaan aawe cabdisalaan xasan bare accept dheh haddaan ka hadlaya qof hurdo dambana ma soo wici karaa ir hadda waa hurdaaba cabdisalaan ما هرد باي السلام عليكم. عليكم السلام فريسو. وافد يا باي مع المين مغشا. هواكم مقلا هي محل نقدر سنيسا. باي مع وير باي نقدر سنيا ما قرتي. هاي لأن يرادا محا كل طلين لهيت أو عليك كجرتي تصدري معي محا أنا يرادا عن كل طليا. ورت وحوام ما يسمى ما قرتي. هاي. ولا اللي يرى أركس كل أفنى قد بنقول ما حد تقول سنة صديق ما تبغى أركس كهاي هاي بدك بايو ورت الدمر كنا بدين مقرتي هاي ما مغشى وانكم مقلا دمر كنا مدكو دمر كنا مدكو خلدين نينك رجع مركو رد وحسكون راعيان يجو عند نلش هذا كليه كفر المقرتي ها waxaa dhacaysa khilaafaa dhacaya labadooda dhexdooda kadibna yadaa waxay ku galifaysaa inuu guursado ma garatay hay hadda waa isagoo waxba aanan yani aanan rabin inuu guursado ama uusan rabin inuu reerkiisa kale iska dhaqdo inuu kala kaxay meesha guursan ma garatay oo maxay yay tahay naagta saas samaynaysa naagtii dhahaysa nin guurso iyadiyooba iyagoo isla joog anugu horta baaye macaan anu horta dhowr dad fara badan baan arkay oo waxyaalaha ku dhaqmaya ma garatay wiilasha laftigoodana mid bay khalad ku leeyihiin ma garatay hay horta ma fiicna horta dhalinyaradu sideeda iyagoo aanan waxba haysan oo kulmadoo haysan oo wada qiiqaya dee inay dhahaan mid baan guursanaynaa horta midday guursan yihiin baanu kasoo horjeedaaba middaaba qalad ku aba middaaba khalad ku waxay khalad ku tahay
waxba ma hayaan waxba waxaa ma leedahay hayaan gabadha noloshooda marka hore meel iska soo saar adiga marka hore nin muddo ya yani haa mas-uul bataa haa ayso horta ninku markuu 15 jir markuu gaaro ma garan 15 jir markuu gaaro dee waa inuu reerkiisa inuu waxba uga baahan isagu iskasan karaa reerkiisa dhaqan karaa meel iska soo saaraa ma garatay haye laakiin dhallinyaradan siyo wiilasha waxaan kula talinayaa markaad aad shaqaysatid aad wax tacbatid dee waad guursan kartaa 100 naagood iyo 4 naagoodba ma garatay haye laakiin adoo laba kuwan laakiin gabadha ma kifayn karo oo beriiskeedaan baacinaya haddana mid kalaan doonayaa dee waa la isku wareerayaa ma garatay macan marka ragga soomaalida waxaan kula talinayaa ragow horta shaqaysta markaad meel iska soo saartaan 100 naagood iyo 4 naagood guurtay laakiin waxaa ceeba intaad hal mid guursataan ay meelaha gaajo ugu baktido ma garatay baayo absolutely oo ama ceeda ay ka tuugsato yani nin dhan oo mas-uul ah wiil yaroo adiga ku la-eg ceedan lanoo sheegayo horta waa qof shaqaale ah waa adigoo soo shaqeeyey anigoo soo shaqeeyey lacagta laga soo gooyo marka qof adiga kula mid wixii laga soo gooyo inaad yani ku faraxsanaato oo meel u fadhiisato waa wax ceeb nagu ah runtii marka waxaad leedahay shaqaysta dee haa raggu ha shaqaysto markuu shaqaysto dee afar iyo ilaahay subxaana watacaala wuxuu u baneeyey 4 naagood baa loo baneeyey ma garatay inta afarta la gaarin horta mid balka maxaa tiri bayo inta afartaba la gaarin mid ka adkoo baa leedahay mid bal horta ka adkoo haa horta tijaabi ta koowaad tijaabi inaad dhaqan kartid inaad kifeyn kartid marka hore talabaad ku xijaa waxaan arkay wiilal iyagoo hal mid qaba haddana 100 guursanaya oo hadhowna meelaha gaajo ugu kala baktiyayaan xaas looma baahna absolutely looma baahna waa qalad marka waa qalad baaye macan waa qalad raggana waxaan kula talinayaa inaa markaa de waxashaan guursada oo mid kifeyn kartaan ama aad 2 kifeyn kartaan laakiin ninkoo daboo qiiqsan oo xabadii sigaarka baacinaya naag gabadh reerood waxaad tirahdeen guursanaya waad mahadsantahay walaal waad fikir wanaagsan wey cabdisalaan aad okay cadaan shariif okay kusoo qabtay no cabdaan shariif okay wuu ku diiday okay isoo qabo okay khayre xuseen bile aan kusoo qabtay walaal accepted guurkiioo batay furitaankiioo batay ciyaalkiioo meel walba ku dayacan ilmihiioo ma aragtay subxaan allah jeelashii loo wada geynayo waxaana la iska daayo asalaamu calaykum walaal soo lama wanaagsanaa walaal soo dhawow haye maxaa ku nagu darsanaysaa dadka aan weli guursan maxaa kula talinaysaa السلام عليكم فروزن maxaa noqday taleefanka frozen ka xun marwan may gabdhaha xataa la soo qabana aaway gabdhihii meeye gabdhihii aawayaan soo qabtaa insha allah mar dhawaa idinka tegayaa marka sidan halisku dhaamo guurka tembareeriga ah guurka ma aragtay danaysiga ah ninka qurbaha ha igeeyo halkan ha ii waxeeyo lacag yar waxaaneyti ha la iska daayo guurka waa wax muhiim ah ha la guursado laakiinse walaalayaalo idinkoo diyaar ah ha laga wada hadlo communication ha la sameeyo yacni waa la iska gelayaa dalab sanad kadibna waa la kala cararaya ama 2 sano kadib ciyaalkiina meeshii ciyaalkan yararka ayaa meesha ku baaba'aya ma garata ninkii naa kale isku guursanayaa ilmihiina meeshay iskaga baaba'ayaan ها سليخة محمد ما شاء الله ولا شيء أنا قاضي إن شاء الله وإذا كنت إياه هدو إلهي يرادو خير إبرواقو أيا إذين رجينا إياه
macalmadda dugsiga raadinaysa haddaa aragtaan shalaa dugsiga u gooyey mogta waxay leedahay tii meeshaanay fadhidaa Purex plus Clorox 2 detergent at a Texas rodeo in the ultimate stain test. kaa qaada suleeqa hee yaa khayre xuseen wuu kaa go-ay walaal wuu kaa go-ay Or a truck full of tough. wax yar qur-aanan dhegeysanayna insha allah waa idinka baxayaa بسم الله الرحمن music meesha ka dhegeysanaysa qur-aan dhegeysta الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم علي الشيخ dugsi baan leeyahay mar dhow intaan shaqada aadin dugsi baan dhigtaa mugta dugsiyada ha lagu noqdo macallimad meeshaan iga arkaysaa waxay leedahay naa shalay waad goysay xagee ka dhacday maanta waxaan u malaynayaa dugsiyada markii la goysaan soo leedma garaaci jirin marka ciyaalka ahaydeen asalaam calaykum cali sheekh وعليكم السلام ورحمة الله سيتاي fadali iska dhowow ay ولا maxaa ودبا ما شاء الله dhalinyarada adig ku jirtid waa xag ayaan intayna guursan ka hor والله waxa uu la talin lahaa macnaha mise aan ka dhiibi lahaa ra'yigayga wax loogu baahan yahay wax ugu muhiimsan maadaama uu yahay qofka guursanaya ninka ragga ah mas-uuliyadda ugu badan asiga fuulaysaa kow dheh diinta islaamka yay saartay mas-uulka financialka ma aragtay guriga yay saartay diiniyan yay saartay raggay saartay ragga rag waxaa hadda soo baxay gabadhiiba ku xisaabtamaya inay biisho haye ka war waxaas taasi walaalo aniga waxa u arkaa inay qalad tahay haddii iyaga ay ku heshiiyaanne wax gooni ah waay laakiin ragga uma wanaagsana sharaftiisa iyo siduu allah subxaana watacaala u amray marka maadaama uu asiga mas-uul yahay horta ragga waxay raadiyaan badanaa gabar boqolkiiba boqol wanaagsan ilaah subxaana watacaala wuxuu ugu talagalay ragga iyo dumarka inay iyaga iskaamilaan waayo qof kaamil ah ma jirto qof walba wuxuu raadinayaa qof perfect ah oo gacanta isaga ku samaystay inaad moodid yani wax walba si wanaagsan marka allahna wuxuu ugu talagalay labadood inay is dhammaystiraan ay iskaamilaan marka maadaama oo qofka ragga ah oo mas-uuliyaddaas la saaray waxaa loo baahan yahay inuu aad u foojignaado waayo ammaano allah subxaana watacaala uu ku dhiib weeyaane dad rag badan inay ka dhacsan yihiin mas-uuliyaddan inay reerkan loo dhiibay in isaga aakhiro ilaahay la weydiin doono dad badan ma moodaad rag badan inay ka dhacsan yihiin oo maxaan ayba fahansanayn wallaahi taasi waxaa waaye waaba shaki la-aan waaye dadka ilaah subxaana watacaala si ma ahan rag badan oo og inay jiraan waxaa waaye wax iska cad weeyaan oo raggu badanaa waxaas kama fikiraan oo iska guursataa qaarna iyagoo hal qabaan oo xabadii wax u laabee mid kale iska raadiyaan oo
waxay maqleen waa la guursadaa iyo afaraa banaan marka cilmi yari iyo jaahilnimo waa iska jiraa dhalinyarinimo qaar waa iska jirtaa marka waxyaabo badanaa jiro zamankan waa lagu xisaabtamaa waqtigan la jooga hadda dumarkii waa aragtaa waa waqti iska fidno badan marka intii waxaani ra'yigayga waxaa dhihi lahaa intii 4 mise 2 a guursan laheedo oo caruur kala yaacsan hablo badan oo la furi hal gabadh iska guurso midaadaa si fiican u dhaqaaleyso si fiican iskaga wanaagsana maasha allah wallahi wiil yar aad aqli cali jazaaka allah khayr walaal aad baad mahadsantahay cali sheekh ay walaasheeda mudan dhalinyaro yar waxaa jirta maasha allah cabdullaahi geesood wiilkaas hadduu single yahay gabar qayr qabto ugu duceeya maasha allah inti single cabdullaahi ha calaykum salaam walaal abay mawduuca muxuu ku saabsanaa horta marka hore haya mana ma bilowday ha homa adoona na soo dhagaysan ayaad isoo qaba leedahay mawduuca horta ii dulmar mawduuca walaal waxa waaye dadka guurkiyo hadda iska noqday ma aragtay wax lagu cayaaro waagii hore hooyooyinkeena guursanayeen ama aabayaasheen yacni wax badan baa laga sheekaysan jiray reerihiibaa geeda hoostood fadhiisan jiray odayaashiiba gabadh marka lasoo doonayo wax big deal ay ahayd ma garata sax laakiin hadda lagu guurin jiray gabayaa jiri jiray waa la isku geeraari jiray waxyaalo badanaa jiray yaabo badanaa jira gabdhaha waa la qadarin jiray waa la sharfi laakiin waxaa waaye hadda geedkii orod lagu koro oroda loogu soo degaya ilmaha meel walba daadsan ilmihii yacni meel jeelashii qaar gaaladii qaadanayso qaar xataa haddii afrika joogaan ee hooyooyinkii ay xataa jaad gadayaan nimankiina meelahaas iska jijiifaan marka walaalayaalo guurkaasaan ka hadlaynay guurka intaan la guursan ka hor maxaa qofka looga baahan yahay waxyaaba badan horta looga baahan yahay marka koowaad ilaahi subxana watacaala qur-aankiisa noogu sheegay labadu qof marka hore waa inay horta kalsooni ay jirto labada qof xaggooda ay mustaqbalkooda ay go-aan ka gaaraan marka labaadna qofku suuratu nisa waatii ka hadashay ilaah uu yiri mataqaanaa mathna wa thulatha wa rubaaca fain qiftum alla tacdiluu fawaxidatan horta culimmada soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedba waxay aad uga dhacsan yihiin baa jiro oo ah qofka inuu horta marka hore uu awoodi kara uu awood u leeyahay mataqaanaa fain qiftum alla tacdiluu fawaxidatan hadduu cadaalad uu samayn karin hadday noqoto xaggii mataqaanaa marashada iyo hadday noqon xaggii mataqaanaa dhaqaalaha intiiba hadduusan awoodin qofkii inuu mataqaanaa hal ku gaabsado ayuu ilaahi subxana watacaala qur-aankiisa uu ku sharxay marka qofku waxa u fiican oo u wanaagsan inuu hal ku ekaado hadduusan awoodin hadduu awoodo mataqaanaa masruufkiina ka bixi karo dhankii kalena uu ka bixi karo maasha allah waaye afar ilaah u baneeyey wuuna guursan karaa laakiinse hadduusan awoodin waa inuu hal ku gaabsada waxaad arkaysaa qof aan asagiiba la biilaayo oo mataqaanaa waxba aan haysanin haddana dhahayo afar dumaraan guursanaya meeshuu ka keenay iyo ra'yigu kala soo baxay ma garanaya aniga aayadda qalad u fash way iska maqleen way iska ma garanayaanba micnaheedaba waa iska qaateen afartun bay kaga dhigtay afartii kaga dhigtaa marka taas dhibna weeye mas-uuliyaddana maalinta qiyaamo waa lagu weydiinayaa awlaadda marka inaad soomaalida waxay ku maamahaan maamaha mataqaanaa sideeda markaan fiiriyena sina qalad u ah sina sax u ah waari maysida warasaha ka harto micnihii qofki inuu awlaad dhalo way fiican tahay laakiin awlaadda waxaa kasii muhiimsan inaad mustaqbalkooda iyo diintooda iyo wanaagooda iyo maslaxadooda meesha ku jirto inaad marka kasoo bixi kartid ama u raadisid hooyo ahludiinah oo diinkii taqaano markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay dumarka uu kasoo sheekeeyey iyo habka loo guursado wuxuu yihi tarabat yadaaka min addiin midda diinta la guurso nimankana sidoo kale waa ayagana waa la mid qofka diinta leh bimaalihi waa sharbihi waa cirdihi waa markii la gaaro laakiin waxa ugu sharaf badan kan diinta leh oo akhlaaqda wanaagsan leh qofkaasaa mataqaanaa mustaqbalkii ama meeshii la raba kasoo bixi karo walaalo gabdho badan oo dhalinyaro ah oo hadda magaaladan aan jooga ayaa maxaad u magaalada ku sugan tahay magaaladan minnesota aan joogaa waxay u dhahay niciimo wiilashii
yacni nin ma aragteen rabo gabadh inay isaga biisho ku dhahay wiilasha waxay ku leeyihin markaan isukaansano guriga adig ma degan tahay adigu maxaa qabsataa adigu muxuu ahaa gabdhaw yacni shaqaysta iyadii jeebkeedii ayaa moodaa inuu ku xisaabtamayo ما أقرسبن وي إلا وحس كله wax aad iyo aad u falxun weeye diintana ku falxun mas-uulkan ilaahay wuxuu ka dhigay rag uu ka dhigay dumarka kama dhigin ninka raggaa la rabo inuu masruufka iyo dhan walba uu ka soo baxo ma garat absolutely xataa diinta islaamka nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa wuu caawin jiray markay dheriga karinayeen xaawadu dhinac kasoo guri jiray nabi alayhi salaatu wasalaam uu dhinac wax uu la qaban jiray xaaskiisa garanaysaa wanaag hadday noqoto maslaxad hadday noqoto laakiinse qofka inuu dhaho mataqaanaa keliya gooni u soconayo waa laga fiican yahay labada qof inay iscaawiyaan haddii xanuunsantahoo kale duruufta xanuunsantahoo kale inuu la caawiyo haddii marka ay garab u baahan tahay in garab la siiyo laakiin haddii caafimaad qabto markaas ay waxyaalaha yara guriga kaga suubsan ayada qabsan karto haddee wiilasha dhaha ay ka waran gabdhaha yani markii la dhaho yani wax lala qabto oo hala caawiyo oo ha loo naxariisto oo dhaqan gaaleedka anigay rabtaa inaan guriga ma dhaqan gaaleed ba may dhaqan gaaleed maaha dhaqanka si qaldan u fahmeen qofka waxaa fiican inuu mataqaana ku gaabsado rasuulka iyo diintana suban quraan kariimka iyo kitaabka xadiista nabiga alayhi salatu wasalaam nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri taraktu ummati nabiga alayhi salatu wuxuu yiri quraankana qabsada عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين سنة قبصة أفرت خلفاء الراشدين سنة إيدين جيران قاتا النبي عليه الصلاة والسلام عبوك له يري القرآن ومثله معه يعني كذا وحاول منطقة القرآن يوح لمده سيدا حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيدا ظاهر كم مقط مركب هذا ترى القرآن كليا قاضنا يا درجة waxaan noqonaysaa quraankiina si qaldan u fahmin aan ku dhaqmin ayagana oo si quraaniyiintu kale ma sha Allah hadda gabdhaha maxaa iyo wiilasha hadda la see gabdhaha maxaad kula talinaysaa aan wali guursan oo raba inay guursadaan inay iska eegaan maxay iska eegaan inay iska marka koobaad inay horta ilaahay tala saartaan qofka markuu ilaahay ku kalsoon yahay marka labaadna alla ka cabsi inay jirto ilaahay qof ku xiran yahay marka koobaad wadamada qurbaha markii la joogo qofka waxyaalaha ugu badan oo ummadda Soomaaliyeed ay mataqaanaa aad iyo aad awalka hore diintooda ku wanaagsanayeen haddii dalkii la joogay markii la joogay waxaan ku saamaxayn waqtiyada salaadoo kale qofka inuu mataqaanaa salaada waqtigeeda uu kontrolo as-salaatu calaa waqtiha salaada waqtiga leedahay waqtigeeda qofka inuu kontrolo marka koobaad marka labaadna ilaahay inuu baryo inuu ilaahay mataqaanaa mustaqbal wanaagsan u dhiso وإلهي كبري وحول بأود بيد الله كجرتا مركز الدحادنا قفكو مستقبل كله ذا جيو وإنه آيتين كيس كلا تشتان أو إسلا جاران ديسيسون وناكسن أو دين كسلسن ما قرأت عن كسلسنين قبيل كسلسنين كورن جور كسلسن إن عن نينكو جبردو ودن كانتو أما العكسي أما ويل كسيدو كله جور كسلسن interest كورن ما انترستي ما بنانا مرنا ما بنانا انترستي لكن قف وكيني كرا دبرنا نين كذا وكيسان كرتا او قبو نين حاسكيسا او كيسان كرا لكن انترست داي تاي كان انكو سو مeel maro ku garoonka markii la keenay ku kala tagaa jiray ma garad magaaladan joogo ma taqaana inaan sheego ma rabo qofku waxa la rabaa inuu ma taqaana ilaahay ku xirsan kalsoonin inay jirto marka koobaad is guursanay ما شاء الله ما شاء الله ولا الآن بدو ما تصنت هاي عبد الله جزاك الله خير حديث زي القرآن كان أد ما تصنت ولا هاي سلام أيوة هاي سميرة علاد ما شاء الله سو دويني يا ولا أي ويوه ستا قبلس سميرة علاد ويوه ستا سوق اقرأ هذا أنا سوق اقرأ سوق أنا سوق سميرة ما لقواي مرك والبابا سودا هو هالكان واتاجنته سودا هو وإحنا من كم قيب قادة كعلم سوق قبته هذا البدن بعد هي صاير سميرة على هذا البدن بكابوحة عيال ماشان متجوجان سكولكم قين اقرأ
اقرأ. هلو. السلام عليكم ولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام يا ولا شيء قالقة. ها اقرأ عدي أباي سود هاي فكرك ولا شيء. horta waa mahadsantaa walaashayda qaaliga inkastoo aan gadaal ka soo galay haddana aan si fiican u dhageystay barnaamijka haddii aan si fiican barnaamijka u dhageysto waxaa ii soo baxday guurkii hore iyo guurka hadda jira yaa wanaagsan sax walaa la maya la kan ma ahayn guurka laga dhigay walaa laga dhigay temporary laga dhigay wax oo ku meel gaar laga dhigay guurkiyo aan iska guursanayo yani waagii hore guurka qiimo lahaan jiray ma aragtay hadda laakiinse waxa waaye interest qofba qofku danayso guur aan basalkiisa ahayn laga fikirayn long term inuu yahay laakiin just wax temporary laga dhigaayo wax dhow oo furitaankiina batay marka maxaa ku habboon qofka intuuna guursan inuu sameeyo wiil iyo gabarba maasha allah abba waa mahadsantahay horta sida wanaagsan aad barnaamijka ii fahansiisay haddii aan guda galo horta guurka in laga fiirsadaa wanaagsan guurka horta waa wax shay aad u muhiim oo qaali ah maasha allah lagu baraaro marka guurka intaadan guursan ayaa laga fiirsadaa soo maahan rag iyo dumarba marka fandalaq waa laga fiican yahay ha obaayo oo ma aragtay guurkii dadkii marka intayna isla sheekaysanayaan wax kama wada sheekaysanayaan warniyan waxaan rabaa inaad soo shaqaysiisid wiilkii xataa mas-uuliyaddiisa ilaahay saaray ma garanayo gabadhii sidoo kale wax iyada looga baahanayo ma garanayso waxyaabo badan ma aragti waa la isku soo boodaya 2 sano kadib أنا علمooyinkan dhegeysta maalin kasta waxaa maqlaysaa ninkaan iga fur problem maantoo dhan laga hadlaaya wadaadadii waxaan dhahay walaa stress aan ku dhacay horta markii bisaraaxa laga hadlo barbaleenka inta badan dumarka ayaa wado ifur dumarka way ka imaataa haddii bisaraaxa laga hadlo 90% mideeda kaleeto markaad guursanaysid guur aad ka fiirsatay ayaa la guursadaa haddii aad guursanaysid guurkaas oo noqdo mid wanaagsan ilmo ku dhasho ilaahay waxaa ku dhahay qoys wanaagsan oo barakeysan in ka dhigaa laga yaabaa laakiin haddaan guursanayaa birit waa furayaa maybe inay ilmo imaadaan ee ilmahaada tirada ka bataan aabahooda aasoo oo garan waayo xitaa waa laga yaabaa marka guurka waa shay qaali ah laakiin in laga fiirsadaa fiican oo lagu degdegin markaad guursanaysidna aad ka fiirsato in badan haddii xitaa la fiiriyo guurkii hore ka fiican guurka sanadadan inta badan jiro guurka hore wuxuu ahaa guur aad u qiimo badan la isxusmeeyo dumarka aad ay qaali u yihiin sanadkan haddii la fiiriyo dumarkii yaaba raqiis ah nimankii yaaba qaali ah guur waxaa arkaysaa raggii la gadanayo dhahay ninkaas baan gadanayaa suu ii guursado markii daneysadana ay naag sanadkan ay wax fureyso marka reeraha isqa waxaan leeyahay ilaahay isku in barakeeyo gurigiina heesta inta kale hadda guursanaysana guur aadan ka fiirsana ha ku degdegin oo leeyahay aniga markaan dadka aan u sheego fikradeeda aad bad u mahadsantahay walaashay khayr iyo barwaaqan ku rajeynaya walaal hay walaashayda salaamu calaykum samira alaad ya samira walaashay I know waxa soo hadal jacayl ka keenay samira loves me I love you sister yaa soo qabtaa samira ma soo qabtaa كفتني وزميرة اوكي هاد كسي بحا ومالينايا قف كالو الرابع إن لسوق بتماله مرد الدكسية انقلايا دكسية اونلاين على ايقا مكت ان شاء الله قرانك هلا برتو دينت هلا برتو you never too old to learn مقرت شالي انو حاون تيجي ميل او 10 اللي يقصوا ديقاي نوتريشن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سميرة ولا شيء بلن أسوق بنا سمير وحوا ما ربطنا سوق ولا شيء عدي بلن قدر أسوق بنا سمير هدادي جديد ولا الجروج يعني تسديد قف أكون القف جوج مال كل جاي أحفظي مردنا أنا وكب حياة ها قرآن إكتا السلام عليكم خدك ما تكشرع حبيب iga raali noqo maaragtay meel wala ciyaalan jooga iyo maaragtay anigoo bilaa shalmada marka xabiibti aad iyo aad baan kuu salaamayaa in barnaamijkaad ka hadlaysana aad iyo aad baan ii qanciyay anigoo marwa ahay
siiba dhalinyarta Soomaali waxaan ugu maadaragtay aad iyo aad ugu faraxsan horta yaraan bay isku guursadaan yaraan bay ku dhadhalaan aniguba 15 baan ku guursaday laakiin inkastoo furniinku batay furniinku wuxuu ku batayna waxa weeyaan maxaa la dhahaa kalsooni la'aanta iyo isku dirka iyo familiga wala dhisan ee la isku dirayo Soomaalidu haddii iska daayaan xaasidnimada heer way gaadhayaan inta badan waxa wanaagsan labada qof ee maadartay iscalmaday in loogu daro duco laakiin haddana way isku diraan dadku labada qof ee wala sheekaystana kalsooni la'aan baa kala dhex taala iyo in aan maadaragtay gacan qabasho iyo dee ay maadaragtay lacag la'aan ayna maadaragtay isku guursan laakiin haddii labada qof ee waxba haysanin la is caawinayo ay Soomaalidu is caawinayso oo iyagu ma aragtay dhiiri gelinayaan heer waan gaadhi lahayn anaga guurka qababa anaga qaarkeen ها marka xabiibti wallahi ma aragtay inta badanna ma aragtay social media wuxuu noqday ma garanaysaa de wax xun oo la daawan karin inta xun ma aragtay Soomaalideen inay jeclaadaan ma wanaagsana inta fiican inay daawadaan inta xun iska daayaan waxaad arkaysaa imika 7kan 2000 ma aragtay 17kan ilaa ma aragtay 16kan waxyaabo fara badan baa soo baxay oo ma aragtay awlaadan u fiicnayn anaga indhahayagana noo fiicnayn laakiin walaal bilanay qaranka anagana u fiicna awlaadan uma laakiin se kuninayna ma anagiya wad ma aragtay maanta waxa arkaysaa laakiin qashinka waa la rabaa subhanallah waa akhir zaman waa akhir zaman laakiin haddana Soomaalideena xumaantii way jeclaanayaan xumaanta hala joojiyo inta ma aragtay dadka xumaanta ku dhiiri gelinaya yaaba ugu daranba inta xumaanta ku dhiiri gelinaya ayaa ka daran inta xumaanta sameynaysa inta raacsan baana ka daran waayo maanta anagu Yurub aan joognaa Yurub iyo qurbahan aan ku noolaa dhulkaygii hooyo ma joogno maanta ilmahan haddii uu maanta ilmahaagi arka adoo wax fiican ma aragtay qofkii wax ku dhiiri gelinaya ilmahaagina uu ka xumaanay laakiin dad wax fiican qofkii ku dhiiri geliso adigina ilmahaagina uu ku fiicnaanay adna wad fiicnaanay reerkaaguna reer qawow noqon ma sha Allah walaal aad bad uma hadsantahay walaashay bilan khayr iyo barwaaqo ku rajeynaya walaal hello hello ma ku jira marka xabiibti waxaan anigu ma aragtay inaan sheeko dheer ma jecli waayo awlaad yar bad dhex jooga iga raali noqda laa hooyo isnishkudki marka ma aragtay xabiibti aanu aad iyo aad baan barnaamijkaaga ugu faraxsanay aad iyo aad baan ma aragtay u xiiseeya inta ma aragtay xumaanta daawanaysa Soomaalida intan meesha ku jirta siiba waxaan leeyahay indhihiina wax fiican ha arkaa si uu gurigeena u fiicnaa ilmaan role model fiican akis heriyege wiilkaas soo qaban alla taleefankaaga maba ogala waa diiday walaal uu ku diiday qoole cadde yarow aan ku soo qabto Axmed Nuur Salaad ana waa kugu xijinaya walaal sug Samira thanks walaal thank you warwa imisadii ma meeqa saac wiilkaas aan soo qabtay accepted waa idinka sii tagayaa hani maxamed okay hani wiilaa ka horeeyay sug Axmed Nuur accepted walaal waa idinka sii cararayaa aniga insha Allah accepted walaal waa sii tagayaa اقرأ عرتن علي thanks ولا الله مدن okay أحمد نور accepted ولا accept وسوق بن واي هني سوق بنايا هني is the last person وانت كتجي إن شاء الله بسم الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعيمة والسلام سيز وكاقاد ولا شيء هني سود ولا حالة أي ورن ما أنت هدان قطعة ما أنت فيه راسه كشيء
ها أنا أباي وحين نوتهاي وكير فائدة استجانس كان قلبتها شقة هذا يا مركوحة إسر أنت هذا بحين ما أنت صوقل أنا وحين نوتهاي صبح نوتهاي إن شاء الله هني فروزن ما نقطع كونكشن كاكاح مادميا سميرة عفس ولا الوحبة ما له عادي حبيبي ما تسمين ولا شيء وته سميرة عدي wargabadhii aawi hani alla hani walaaluu kaa go-ay kugu soo celiyay sug connectionka ka halaabay hani waan idinka tegayaa insha allah waan kaa qaaday walaal assalaamu calaykum faysal wacalaykum assalaam ciil badana walaashay mar kale igu soo casun okay waan kugu celinayaa bal mar labaad sug walaal axmed nuur salaad wuu kusoo qaban waayey أنا waxay ugu taagan dugsi iyo shaqo macallimad aan shalay u gooyay raadinaysa quraan baa lay barayaa axmed nuur salaad waan kugu soo celiyey oo ka uu qabsan waaye ayaan wardheere wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waad salaami dhammaantiin qayri barwaaqa idin rajeynayaa insha allah mar walba qayrkaan isku dardaarano cafiya masaamax waa anigoo nicimo ducaala ah walaalayaalow hala iscafiyo guurkana hala wanaajiyo guryaha hala wanaajiyo maalin dhawood waa ogeedeen mawduuc yaraa idin keenay ku saabsan gabdhaha guursada dadka aan soomaalida ahayn iyo waxaas maasha allah calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu wiilasha soomaalida iyo gabdhaha soomaalida waa dad aad u wanaagsan isjecel isqadariya laakiin xoogaha wax yar waan soo qaxnay systemkii aan naga dhumay waa in iswacyi gelino waa in guryaheena aan wanaajino xataa maalin hore waxaan keenay topic ah goormaa kuugu dambeysay xaaskaaga ama gabadha ama ninkaaga inaad hadiyad u geysid wiilashii waxay dhaheen naciimoy waanu bilownay inaan xaasaskeena hadiyado u geyno in aan ammaano inaan magacyo fiican ugu yeedhno gabdhaha waa masaakiin walaalayaalo hala teekeer gareeyo guryaha hala qurxiyo miro geed saaran miro gunta kugu jiraa kaaga wanaagsan waxa waaye gabdhaha waa isku wada middaa gacanta ku haysatid ku fara adeeg maasha allah u ammaan waxaad tidhaahdaa you are the best wax kaa wanaagsan male annaga ammaanta waan jecelnahay mugta we love ammaan in la ammaano we love it maanta dhanna ammaano waa jecelnahay marka walaalayaalow gabdhihiina guryihiina idin jooga gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho wanaagsan gabdhahana waxaa laleeyahay walaalayaalow mar walba waxaa la yidhahdaa madax adeeg waxma maqashaan baa la yiri nama maqlaan nama qadariyaan wiilasha qadariya in madaxa nimankiina qadariya u dhaga nuglaada maqla waxaad tidhaahdaa you are the only man wax kale ma war ninkaa wanaagsan male maalinta adigu guursanayay wallahi hooyada way iisoo ducisay wanaaji ninkaaga walaal wanaaji yacni cid kalena ha dhegaysanin gurigan adaa iskale adaa mas-uul ka ah teekeer garayso ninkaaga raaliyo noqo walaal raaliyadu ceeb ma aha ninkana raaliyu kuu noqon raaliyu wuxuu ku noqonayaa ninku koolkooliya take care of your husband ma garatay wanaaji ninkaaga wanaaji wuu ku wanaajinayaa reeraha dadkan iyo ha dhegaysan ninka amra waxaas ma samayn karto waa sidan oo hadduu ninkayga amra what's the big deal maxaa idinkan ka galay marka gurigaaga yaa lagugu diray warniyo adna xaaskaaga walaalayaalow wiilash gabdhihii waxay dhaheen nimankii dayacay nagu dileen nooma soo adeegayaan nama dhegaysanayaan waxaan ku leeyahay nama qadarinayaan waxna lama qabanayaan war gabdhaha intaasaa la egtihiin la qabta guriga wax la qabta oo sunnaha nebi maxamed xoojiya ma aha dhaqan gaala ma aha waa dhaqankii nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam gabdhihiina kool guryihiina maasha allah bay noqonayaan wallahi bilaahi marka insha allah dee anigu dhexdhexaadiyaan ahay dhinacan iyo dhinacan waxaan rabaa mataqaana guryaheen inay qurux badnaadaan beautiful children beautiful home yacni irsaaqadana ilaah baa bixiya dadooda shaqaysta lacag xalaal ah la keeno yacni wallahi saxaabadii waxaa lagu leeyahay dadkii hore waxay dhihi jireen ninka markuu banaanka u baxo ilaahi nooga baq wax wanaagsan oo nadiifa noo keen wax walba noo keen ma dhihi jirin lacagta hadday lacag xalaala tahay iyo yar tahay xataa ilaahay ayaa kuu barakeynaya isnad ma aha inaad guri mansion aad degan tahay inaad maxaad u taqaanaan richness maxaa u taqaanaan balkaaliya
success maxaa u taqaan qani maxaa u taqaanan maaha inuu qofka millionaire yahay oo lacag iyo adduun no you can have less adoo wax yar haysta ayaad qani tahay you know marka it's from the heart waxa weeye qaninimada ma aha inaan maanta gaari mercedes a wato oo heblaayo aan la horta kaaleya tartankaana maanta oo dhan heblaayo aan fiirna heblaayo maxaa iga galay I live in this house magaaladan aan joogaa gurigeegan Soomaaliba meeshan ma degan heblaayo ani maxaa iga galay heblaayo waxaa laga yaabaa inay iga inkan badan tahay heblaayo waxaa laga yaabaa inay ma aragtay ilaahay u nimceeyey oo ma aragtay ana ilaahay i nimceeyey maxaa aniga waxaagii haddaa arki weydid war shaahaasay haddaad tiraahdo thank God alxamdulillah neeftan aad neefsanaysid wallahi billahi haddaad ilaahay ugu shukridid you know can you ma iibsan kartaa neeftan wax walba ilaahay wuu ku nimceeyey marka waxaa noo baahan yahay cabdan shakuuran inaan noqono dad ilaahay u shukriyey wax walba ah comparisonkan isku samaynayno dumarkeena Soomaaliyeed aan maantana dhahayno muxuu ahaa hiblaaye gabadha hadda kor waxay ii sheegtay waxay tir walaalay gabadha dariskayga nafta ii keentay waxaan ku dhahay maxaa dhacay waxay tiri mar allaale markay ay hooyaday aragto waxay leedahay tiri hooyo eedo muxuu ahaa ninkayga waxaa soo dahaba isaga ii soo gaday markaas hooyaday igu kacdaay tiri ha hiblaaye inta soo dahaba haysatay adiga maxaa dahab ma yacni waxaa u malaysaa faan maxaa aniga galay maxaa iga galay dahabkaa wadatid meeshan dahab ma laga isticmaalay bulkaatigaas iska wata who cares yacni waxaaga inaad ku qanacdid waaye naa kalena yay ma aragtay ku dhihin maxaa haysataa gaariga noocaasaan wataa aniga kana ahay bababa maxaa kaa galay ilmahaaga dhaqo gurigaaga dhaqo ninkaaga adeec take care of your home waxaa haysatid ku qanac marka insha allah khayr iyo barwaaqa idin rajaynayaa waa idinka sii tegayaa dugsi ayaan hadda aadayaa intaan shaqada aadin hal saac quraan baa laisoo barayaa insha allah waa idin aad baan idin salaamayaa walaal khayr iyo barwaaqa idin rajaynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu